madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugu Dheere oo ay wehelinayaan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta kormeer ku tagay xiriir dhowr ah oo la dejiyay qaxootiga dib looga soo celiyay xiriyaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa goob fagaare ah kula hadlay qaxootiga isagoona u sheegay in imaatankooda uu yahay mid ay ugu kurgalayaan xaaladooda dhabta ah, isagoona xusay in amar madaxweyne ay maanta ku soo gaareen xiriyahan. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa dadkii deegaankan ka soo jeedatiin iyo dad transit kumaray inta isugu jirtaan dad barakacayaal horatiin iyo qolada soo laabataatiinba waa salaam ya salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh. dhibaatooyinka ida haysta adinka annagana haystaan waxaad tabanaysaan oo dhibaato ama idinka muuqda ama aan xoogaa u noqonay ama aan aragnay annagana haystaan markaan dhibaatooyinkiina maqalnayna waatana waa idin soo gurmanay dowlad goboleedka Jubbaland baa idin maqan wasiiradii ku shaqo lahaa oo xaaladan maanta u fadhiyay oo aan qof ka maqneen booqashadii kugu timi ayadoo amarkaasna oo ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka si xaaladiina nololeed loo daryeelo dhibaatooyinkiina loo xalliyo wixii dhibaato la kulanteen insha Allah hadda wixii ka dambeeyo fudeed oo bixi doontaan wax fudud oo bixi doontaan haddii aan la idmo. waxaan ka codsanayaa xaqiiqda wixii la weydiiyay ka sheega xaaladihiina runta ka sheega haddee tahay maamul iyo haddee tahay mas-uuliin sare iyo haddee tahay guddiyo inta waa kuwa soconnaa cid naga maqan male wasiiradii howlahaas ku shaqo lahaa haddaa wasiirka garsoorkii cadaaladii dastuurka ka bilaabo arrimaha gudaha maaliyadda qorshaynta madaxtooyada howlaha guud warfaafinta maamulka degmada saraakiisha ciidamada madaxweynaha baa naga maqan isagoo anoona soo diray annaga wakiilka ah intaan ku qanacdiin baa laga rabaa horta ma garateen marka maanta wixii ka dambeeyo meel kale waad cabanaysaan male raggaan baa howlihiina gacanta ku haya waxaan ku dadaalaynaa haddii aan leedmo in noloshiina xuquuqdiina oo waafi ah ilaah baa laga heli karaaye inaad dayacaad dambe idin noqon marka isdejiya ogaada maamulka waa idinka warqabaa warkiin waa maqlay waana idin yimi inta dadkan uu sheega idinka isku sheega wixii xal ah waa la gaariyaa. Zakariya Cabdiqaadir Karazai TV Bulsho magaalada Kismaayo.